26 ruux oo soo ritay cudurka shuban biyoodka ayaa la soo gaarsiiyay isbitaalka weyn ee magaalada Cadaado. Cudurka shuban biyoodka ayaa ka dilaacay deegaanka Iidoole waxaana jirta dad fara badan oo soo ritay cudurkaasi, balse maamulka isbitaalka degmada Cadaado ayaa inoo xaqiijiyay in ilaa hadda la soo gaarsiiyay 26 ruux oo soo ritay cudurkani. Maxamed Cumar Yuusuf oo ah maamulaha isbitaalka magaalada Cadaado ayaa sheegay in la tacaalayaan dadkan cudurku soo ritay, isagoo sheegay in cudurkani uu yahay mid halis ah isla markaana isbitaalka aysan oolin dawooyin ku filan dadkan cudurku soo ritay. dadkaas badidood ama dhamaantood aan yiraahdo hal tuulo ay ka yimaadeen oo Iidoole la yiraahdo. tuuladaas sida la ii sheegay hadda dad badan oo fara badanna waxa waaye wali cudurkii kuwa cusubna uu soo ridanayaa, kuwana waa la jiifaan hadda la soo wadaa. ilaa haddana anaga 26 qof ayaan soo gaartay. dhamaantoodna waxay ka yimaadeen tuuladaas iyo mataqaanaa eriyada ama deegaanada ku aad ugu dhadhow la xiriiro ay mataqaanaa ku xiran. runtii waxaan dareemi kartaa uma aanan diyaarsanayn oo hadda maanta ma aanan filaynin in cudur ama dad intaan la eego cudurkan la jiifaayo oo yimaadaan. dabcan haddana u diyaarsanayna qasab waxa muuqata meesha ka muuqata inaynan mataqaanaa alaabtii ama agabkii lagu la tacaali lahaa dadkan aysan meel loo oolin oo aysan noo sahlanayn. in badan oo kamid ah tusaalaan hada faleebooyinkan ugu shaqeynayna dadkan waxa laga yaabaa farmashiyaal in laga keeno, farmashiyaal laga soo qaaday. dhanka kale Nuur Yar oo xeelay gudoomiye ku-xigeenka degmada Cadaado oo booqda isbitaalka magaalada Cadaado ayaa sheegay inay mar walba u diyaar yihiin sidii gargaar degdeg ah loogu sameyn lahaa dadkan cudurku soo ritay. Waxaanu intaasi raaciyay inay qorsheynayaan xarumo gaar ah oo la geenayo dadkan maadaama laga yaabo in ay tirada dadkan sii kordhaan. haddii uu dadka soo bato in baro la tilmaamo oo barahaas dadka isugu geeyo, maadaama haddii uu sii ballaarto cudurkaano oo yahay mid isbitaalka qaadi karin, waxay u baahan tahay gurmad min tuulo min magaalo in loo gurmado oo ay hay'adaha caafimaadka ee shaqada ku leh ay qayb weyn nagala qaataan. haddii aan la sii socotana waxay keeni doontaa khatar ka badan inta hadda maanta ay joogto aan laga hortagin. deegaano fara badan oo hoostaga degmada Cadaado ayaa waxaa ka jira abaaro, waxaana ay taasi sababtay in dadku ay isticmaalaan biyo aan nadiif ahayn, isla markaana deegaanka Iidoole uu ka dilaaco cudurka shuban biyoodka oo ah mid halis ah, isla markaana dadka waxyeello baan u geysta. Axmed Cabdisalaam Khaliif, Somali Cable TV, magaalada Cadaado.